iyada oo ay Somaliland horraantii sanadkan heshay aqoonsigii ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo markii ay dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda 1991kii ayaa waxa isi soo taraya dooda ku saabsan suurtagalnimada in Mareykanku uu noqdo waddanka labaad ee aqoonsada Somaliland ka hor inta aanu sanadkan 2026 dhammaan. Dhawaanahan waxa soo xoogaysanayay ololayaasha Somaliland ee ku wajahan Mareykanka. sidoo kale waxa jira hindise sharciyeed loo gudbiyay Koongareeska Mareykanka kaas oo loo yaqaan Republic of Somaliland Independence Act kaasi oo madaxweynaha Mareykanka u ogolaanaya inuu Somaliland u aqoonsado dal madax bannaan. dhanka kale Somaliland waxa ay sii kordhisay dadaalkeeda siyaasadeed ee ku wajahan Washington. warbixin la daabacay bishii July ayaa sheegtay in xukuumadda Somaliland ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu hogaaminayo ay ka shaqaysiinayso xeeldheerayaal iyo la taliyayaal qayb libaax leh ka qaatay ololihii Donald Trump kuwaasi oo ay uga faa'iideysanayso si ay u xoojiyaan ololaha ku wajahan aqoonsi rasmi ah oo ay Somaliland ka hesho Mareykanka. dhanka kale Somaliland waxa ay si cad Washington ugu muujisay muhiimadda ay siinayso iskaashi dhinaca amniga, macdanta iyo saldhigyada militari. bishii February wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland ayaa sheegay in Somaliland diyaar u tahay inay Mareykanka siiso fursado la xiriira macdanta iyo saldhigyada militari. waxaa sidoo kale jira warar iyo hadalhayn siyaasadeed oo isi soo taraya kuwaasi oo sheegaya in Mareykanku uu ka fiirsanayo aqoonsiga Somaliland inta aanu dhammaan sanadkan 2026. hase yeeshee ilaa hadda ma jiro bayaan rasmi ah oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ama wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, inkasta oo Mareykanku uu sheegay inuu raadinayo fursado dheeraad ah iyo iskaashi maalgashi oo uu Somaliland la yeesho, gaar ahaan dhinacyada dekedda iyo garoonka Berbera. dhinaca kale Mareykanka oo kaliya ma aha wadamada indhaha lagu hayaa. Itoobiya, Kenya iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna ka mid ah wadamada sida weyn loo hadal hayo, isla markaasina lagu xanto inay mustaqbalka dhow qaadi doonaan tallaabo ay ku aqoonsadaan Somaliland. madaxweyne Cirro ayaa bishii May si gaar ah ugu baaqay Itoobiya iyo Kenya iyo Imaaraadka inay raacaan mid la mid ah tallaabadii ay Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland. Itoobiya ayaa iyadu ah mid si gaar ah loo filayo maadaama heshiiskii ay Somaliland iyo Itoobiya kala saxiixdeen January 2024 uu ku saabsanaa aqoonsi ay Somaliland ka hesho Itoobiya. inkasta oo ay siyaasadda Itoobiya ay tan iyo xilligaasi soo martay isbeddello, haddana Itoobiya weli waxa ay Somaliland la leedahay xiriir istiraatiiji ah oo muhiim ah. Kenya iyana waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo noqnoqday saadaal ku saabsan inay ka mid noqon karto wadamada xiga, halka Imaaraadka Carabtuna uu Somaliland ku leeyahay dana dhaqaale iyo istiraatiiji ah oo xooggan, gaar ahaan dekedda Berbera. wargeyska caalamiga ah The Economist ayaa isaguna qoray in Somaliland leedahay filashooyin aad u waaweyn oo ku saabsan aqoonsiyo kale oo soo socda, isagoo xusay xidhiidhada Somaliland la leedahay dalal ay ka mid yihiin Britain iyo Itoobiya. haddaba haddii Mareykanku aqoonsado Somaliland, tallaabadu ma noqon doonto oo keliya aqoonsi diblomaasiyadeed, waxa ay noqon doontaa isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda Geeska Afrika, maadaama uu Mareykanku yahay quwad caalami ah oo saameyn weyn ku leh siyaasadda Afrika iyo Badda Cas. Somaliland waxa ay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo u dhow gacanka cadmeed iyo marinka Bab el-Mandeb, taasina waxa ay Somaliland ka dhigaysaa meel ay caalamku indhaha ku hayaan. wax waliba waxa ay si weyn isu beddeleen 26 Disembar 2025 kadib markii ay Israa'iil si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland inay tahay dal madax bannaan oo leh madax bannaani buuxa. Israa'iil waxa ay noqotay waddankii ugu horreeyay ee xubin ka ah Qaramada Midoobay ee si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland. tallaabadaasina waxa ay noqotay dhacdo lama filaan ah oo siyaasadda caalamka si weyn u ruuxday, waxayna Somaliland ka saartay xaaladii ay muddo 34 sano ah ku jirtay ee ahayd inay raadiso aqoonsigii ugu horreeyay ee uu siiyo dal ka mid ah Qaramada Midoobay. laakiin aqoonsiga Israa'iil waxa uu sidoo kale dhaliyay muran iyo iska horimaad diblomaasiyadeed oo xooggan, iyadoo Soomaaliya iyo dalal Carbeed oo Islaam ahi ay si cad uga hor yimaadeen aqoonsigaasi. haddaba iyadoo sanadka 2026 ay ka harsan yihiin bilo kooban, indhaha ayaa u jeeda dhinaca Mareykanka, waxaana si weyn loo filayaa aqoonsi ay Somaliland ka hesho waddanka Mareykanka.